gobolka Galgaduud dagaalka waxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac ah ciidanka dawladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa maamulka Galmudug ayaa la wareegay gacan ku haynta saldhigga magaalada Guriceel iyo xaafadaha ku teedsan oo muddooyinkii la soo dhaafay ka arrimayeen maamulka Ahlusunna wal Jameeca ururka Ahlusunna wal Jameeca ayaa inta badan ciidamadoodu waxay isku geeyeen hal xaafad oo kamid ah magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud sida aan xogta ku helayno dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidanka dawladda oo kaashanaya kuwa maamulka Galmudug iyo Ahlusunna ayaa waxa uu ka socdaa qayb kamid ah magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud dadka deegaanka magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegeen inay arkayeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo gudaha u soo galay magaaladaasi gudoomiyaha magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in si nabadgelyo ah xalay saqdi dhexe ay u soo galeen xaafado kamid ah magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud kadibna subaxnimadii hore saaki oo bilowday dagaalka wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Guriceel naga soo gaaray ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid kacsan isla markaana wali uu dagaalku socdo dadkii ku noolaa magaalada Guriceel ayaa inta badan waxa isaga barakaceen magaaladaasi maadaama ay ka cabsi qabeen in lagu dul dagaalamo xalay dadkii ugu badnaa ayaa waxa ay ka barakaceen xaafadaha magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud iyagoona aaday deegaanada fog ee gobolka Galgaduud si ay uga baaqsadaan dagaaladaas iyo waxyeeladooda ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo ka baxay degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ee ku sii jeeday magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa lagu soo waramayaa inuu dagaal ku qabsaday inta u dhaxaysa Guriceel iyo sidoo kale Matabaan gaar ahaan bar control oo ay ku sugnaayeen ciidanka Ahlusunna wal Jameeca ciidamada uu dagaalka qabsaday ayaa waxa la sheegay inay ka baxeen degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan oo ay qayb ka ahaayeen ciidanka guutada shanaad qayb 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay iminka naga soo gaaray magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in magaaladu ay u qaybsan tahay laba qayb oo qayb ay maamulaan ciidanka dawladda halka qaybta kalena ay isugu geeyeen ciidanka Ahlusunna wal Jameeca oo muddooyinkii la soo dhaafay ku sugnaa magaaladaasi kowdii bishan ay ciidanka hubeysan ee Ahlusunna wal Jameeca waxay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud waxaana ay maamulayeen muddo 23 cisho ah waxyaabihii ku soo koray dagaalka ka socda magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud waxa si dhow ula socod doontaan telefishinka Hiiraaweyn haddii uu baqadaro macaamiil ku soo dhawow bankiga caalamiga ah ee